in ka badan 140 askari oo Afghanistan ayaa lagu dilay ambaba lagu dhaawacay weerar ururka Taliban jamciye ay ku qaadeen saldhig uu leeyahay militariga dalkaasi waxa sidaasi xaqiijiyay wasiirka gaashaandhigga Afghanistan dagaalkan ayaa dhowr saacadood socday waxaanu ka socday magaalada Mazar Sharif ee gobolka Baakh ee waqooyiga dalka Afghanistan ururka Taliban ayaa salaadii Jimcaha kadib waxay bartilmaameed ka dhigteen dad marayay oo markaa ka soo baxay masjid ku yaala saldhigga iyo kuwa kale oo ku sugnaa maqaaxiyo ka agdhawaa meesha waxay ka dhaceen waxa sidaas sheegay militariga bayaankan uu soo saaray ururka Taliban ayuu ku sheegay inay qaadeen weerarka iyagoo adeegsanaya dad ismiidaamiyay si ay uga gudbaan difaaca meesha yaalay ugu yaraan 10 ka tirsan maleeshiyadka Taliban ayaa lagu dilay dagaalka halka mintideed midna nolosha lagu qabtay oo la xiray dagaalyahanada Taliban ayaa soo xirtay dareeska militariga Afghanistan waxa ay ka soo gudbeen baraha kontaroolka ee ku yaala militariga ka hor inta aanay weerarka furin waxa sidaas sheegay afayeen u hadlay militariga dalka Afghanistan